qaybta saddexaad raaxada maskaxda ma faraxsan tahay waxa lagu siiyey nolol laguma siin nolol fiican ama nolol xun maalinta ugu wanaagsan noloshaada waa maalinta aad ogaatid in aad adiga 100% mas'uul ka tahay noloshaada iyo farxadaada miyaad faraxsan tahay ma ku qanacsan tahay wax kasta oo aad haysato noloshaada miyaanad rabin inaad haysato wax ka badan inta aad haysato jawaabtu waa haa waad rabtaa waxaan hubaa inay jiraan waxyaabo badan oo dhib kuugu haya ama aad rajaynayso inaad hesho balse su'aashu waxay tahay yaa ka mas'uul ah wax kasta oo kuugu dhacaya noloshaada jawaabta waa mid fudud adiga adiga ayaa ka dambeeya wax kasta oo ka dhacaya noloshaada maalinta ugu wanaagsan noloshaada waa maalinta aad ogaatid in aad adiga 100% mas'uul ka tahay noloshaada aad iska joojisid cudurdaar iyo cabasho ciladna u raadin wax kasta adiga keliya ayaa ka mas'uul ah inaad wanaaga ku raaxaysatid ama waddo qaldan raacdid kadibna murugootid haddii aad ka fikirto inaad tahay qof nolosha waxba qaban karin maskaxdaada waxay aamini doontaa arrintaas waxaadna isku qancin doontaa in aad waxba qaban karin wax kasta oo kuugu dhacaya noloshaada laakiin haddii aad u fikirto in aad ka mas'uul tahay wax kasta oo kuugu dhacaya noloshaada maskaxdaadu waxay bilaabi doontaa inay aqbasho in aad wax badan bedeli karto marka aan badanaa qof u sheego inuu ka mas'uul yahay dhammaan waxa ku dhacaya noloshiisa wuxuu ku jawaabaa maya ilaahay baa ii qoray waxa aan ku suganahay anigana waxaan ugu jawaabaa marka aad rabtid in aad heshid caruur maxaad samaysaa miyaadan raadin qof aad isguursataan maxaad u dhihi weysay ilaahay baa caruurta bixiya isaga ayaana ka sugayaa sababtoo ah waxaad og tahay in allah wax walba sabab u yeelay marka aad la imaadid asbaabta in aad helaysid caruur waxaa lagu siiyey doorasho in aad guursatid ama aadan guursan doorasho walbana waxa ka dhalanaya natiijad adiga ayaa dooran kara in aad ka dhigato noloshaada mid fiican ama mid xun haddii aad wanaagga badiso ajar shaqaysato waxaad ku noolaanaysaa nolol macaan badan ama in aad dembi iyo xumaan samayso maalin kasta oo nolol ciriiri ah ku noolaatid adiga ayaa dooran kara in aad subaxdii xilli hore hurdada ka kacdo oo u dhaqaaqdo rumaynta riyadaada iyo in aad iska sii hurdo oo riyooto nolosha ma jirto cid ama qof aad ku aydayn karto xaaladda aad ku jirto waa adiga qofka gacantaada ku kasbaday waa adiga qofka sameeyey doorasho qalad ah waa adiga qofka qaatay go'aan xun waa adiga qofka runta ka cararay waa adiga qofka mas'uuliyaddiisa aan gudan sidoo kale waa adiga qofka isbeddelka samayn kara haddaba jooji in aad ku eedayso dadka kale xaaladda aad ku sugan tahay aqbal mas'uuliyaddan ficiladaada qaado lahaanshada natiijada ka dhalatay qaladkaaga saacaddu way socotaa wakhtiga wuu ordayaa wakhti sax ah oo kuu imaanaya ma jirto noloshu waa doorasho samay doorasho sax ah wax kasta oo noloshaada ah waa falcelis jawaab doorasho aad adiga samaysay isweydii su'aalahan ma ku faraxsan tahay noloshaada goorma ayay ahayd maalintii kuugu farxad badnayd noloshaada waa maxay waxyaabaha ku farxad geliya miyaad ku nooshahay nolosha aad jeclayd inaad ku noolaato haddii aadan ku noolayn waa maxay waxyaabaha kaa hor taagan waa maxay waxyaabaha aad samayn karto si aad ugu hor tegtid arrintaas qor dhammaan waxyaabaha aad rabtid in aad gaartid noloshaada marka aad ka jawaabto su'aalahan waxaa kuu soo bixi doona liis ah waxa dhab ahaan ku farxad geliya iyo waxyaalaha aad doonayso inaad ka fogaato ee aanad rabin
isticmaal labada liis ee kuu soo baxa si aad u samayso hadafyo kaa caawinaya in aad gaartid ku raaxaysiga nolosha. waxaa tusaale u ah haddii aad ogaato in ay ku haysato dhib ah dhaqaale xumo iyo lacag la'aan, sidoo kalena aad rabto in aad farxad ku noolaatid, waxaad heshay laba hadaf oo aad gaarto noloshaada. midda koowaad, waxaad go'aansatay inaad ka fogaato faqriga oo aad taajir noqoto. kan labaadna waa in aad farxad ku noolaatid. ha sugin in ay wax isbeddelaan. haddii aadan adiga wax beddelin, beddel dhammaan waxyaabaha aanad ku faraxsanayn halka aad ka sugi lahayd inta ay duruufuhu isbeddelayaan. dadka u haysta in ay noloshooda isbeddelayso iyaga oo aan go'aansan in ay wax ka beddelaan, waxay ka hor imaanayaan hadalkii Alle oo ah: Allah ma beddelo dad ilaa ay iyaga naftooda beddelaan. waxyaabaha aad u baahan tahay si aad u gaarto dhammaan hadafyadaada nolosha waa: midka koowaad, hadaf. marka aad samaysato hadafyo, waxay noloshaada noqonaysaa mid dhadhan leh, tartan leh, oo farxad leh. dhacdooyin badanna ay ka buuxaan oo ku dhiirigelisa. cilmi baaris la sameeyey ayaa waxaa lagu ogaaday in dadka leh hadafyo isla markaas u dagaalama hadafyadooda ay ka farxad badan yihiin kuwa aan lahayn wax hadafyo ah. inaad ogaato hadafyadaada iyo waxa aad rabto noloshu waa mid aad u fudud. marka aad ogaato waxa aadan rabin nolosha ee jeclaan lahayd in aad beddesho. haddii aad tahay qof badana stress iyo warwar badan, waxaa dhab ah inaad rabto inaad ku noolaato nolol bilaa stress ah. Albert Einstein wuxuu yidhi, haddii aad doonayso in aad nolol farxad leh ku noolaato, noloshaada ku xir himilo iyo yool oo ha ku xirin shakhsiyaad iyo wax kale. noloshaada markaad macno u yeesho ayay macaan yeelataa. midka labaad, go'aan dhab ah la imow. dhammaan dadkii noloshan guul ka gaaray waxa ay ahaayeen kuwo ku adag waxa ay rabaan, kuna qanacsan fikirkooda nololeed. xasuuso dhacdadii cajiibka ahayd ee nebiga sallallahu calayhi wasallam marka lagu dhahay: iska dhaaf waxaan aad wadid, aan ku siino waxaad rabto sida madaxtinimo, xoolo, haween qurxoon. markaas ayuu ugu jawaabay: wallaahi haddii dayaxa iyo cadceedda midba gacan la ii saaro, in aanan ka tegayn waxa aan ku taaganahay. midka saddexaad, rumayn. awooddaada waa waxa aad aaminsan tahay. haddii aad aaminsan tahay in aad himiladaada gaari karto, waa runtaa oo waad gaari kartaa. haddii aad aaminsan tahay in aadan gaari karin, waa runtaa oo ma gaari kartid. sababtoo ah labadaba adiga ayaa isxukmiyey. waxaad aamintaa in aad samayn karto. si aynu u guulaysano, ugu horayn waa in aynu aaminnaa in aynu guulaysan karno. midka afaraad, la imow qorshe nidaamsan oo qoran. marka aad rabtid in aad samayso hawl, waxaa muhiim ah in aad qorshaysatid sida aad u samayn lahayd iyo wakhtiga aad ku samayn lahayd hawshaada. warqad ku dulqor dhammaan qorshahaaga si nidaamsan. tusaale, haddii uu yahay waxa aad doonayso in aad 10 sano gudahood ku gaarto, qor qorshaha 10 sano ee soo socda ee aad ku gaarayso halka aad doonayso. kadibna ku xiji 5 sano ee soo socota waxa aad doonayso in aad xaqiijiso ee u adeegaya hadafkaaga guud. kadibna qor qorshahaaga sanadlaha ah. kadibna midka 6 bilood ilaa aad ka soo gaarto saacadda aad hadda joogto iyo waxa ay tahay inaad qabato ee uu kuu sii dhowaynaya hadafkaaga fog. daraasad aad u fara badan baa waxay tilmaamayaan wixii aan la qorin ee aan la qorsheen in aanan inta badan qofka u qabsoomin.
haddii aad ku guuldaraysato in aad qorshe samaysato waxaad qorshaysatay guuldaro. midka shanaad la imow ficil. waxa keliya ee u dhaxeeya hadafkaaga iyo in ay rumowdo waa in aad ficil la timaadid. hadaf aanan ficil lahayn waa geed aanan waxba soo saarayn. marna ha sugin in ay kuu timaado guusha haddii aadan dhaqaaq la imaanin. marka aan dadaalno ayaa Ilaahay inoo fududeeyaa waxaan ku dadaalnay. midka lixaad adkaysi iyo sabar badan. ma jirto qof hal maalin ku gaaray nolosha uu gaaray, laakiin qof kasta wuxuu huray waqti dheer isaga oo muujiyey samir iyo dulqaad xad-dhaaf ah. guusha waxay u baahan tahay adkaysi badan. adkaysiga waa in aadan waxba u oggolaan inay kaa hor istaagaan waxaad doonayso inaad qabato marka aad bilowdo ilaa ay noqoto wax xaqiiq ah. midka toddobaad iskaashi. dadka guulaysta waxa ay si fiican u kaashadaan oo ula tashadaan dadka ku xeeran sida xaasaskooda, saaxiibadood iyo dadka ay hiigsanayaan. midka siddeedaad ha ka cabsan guuldaro. guuldarada waa casharka ugu muhiimsan ee lagu barto waddada loo maro guusha, sababtoo ah marka aad guuldaraysato waxaad baranaysaa qaladkii aad ku guuldaraysatay, kadibna qorshe cusub ayaad la imaanaysaa taas oo guul ku gaarsiinaysa. guuldarada ayaa ku baraysa waddada aad ku guulaysan lahayd. guuldaradu ma aha in aad kuftid, balse waa in aad diidid in aad kor u kacdid. Henry Ford wuxuu noloshiisa ka bilaabay meel hoosaysa. in ka badan 5 mar ayuu sheegay in uu guuldaraystay. dadaal iyo isaga oo aan isdhiibin ayuu ku gaaray inuu yeesho shirkadda gawaarida ugu fiican adduunka ee Ford, soona saarta malaayiin baabuur ah sanad kasta. wuxuuna guuldarada ka dhahay, guuldaradu waa keliyaata fursad labaad si aad mar labaad u bilowdid, balse markan xariifnimo dheeraad ah ayaa lagaa rabaa. sababta aad ugu raaxaysan weyday noloshaada waa natiijad ka dhalatay qaabka liita ee aad u isticmaalayso waxyaabaha uu Ilaahay kuugu deeqay. waan faraxsanahay. Saadi Shiiraaz oo ahaa gabayaa caan ahaa waxa uu yidhi, marnaba kama aanan murugoon nolosha iyo dhibaatooyinkeeda markii laga reebo hal maalin oo aan soconayay aniga oo kaba la'aan ah. kadibna waxa aan arkay joog kabo ah. waxaan awoodi waayay in aan iibsado. markii aan gudaha u galay masjidkii weynaa ee Kuufa waxaan dareemay qalbi xanuun iyo murugo, waayo waxaan u ooynayay in aanan haysan kabo, balse waxa aan arkay nin aanba luga lahayn. qofka waxa uu dareemaa nimcooyinka faraha badan ee Ilaahay uu siiyey kadib markii uu waayo. tusaale, marka aad xanuunsato ayaad dareemaysaa qiimaha ay leedahay caafimaadka. inta Alle ku siiyey ku raaxayso inta aadan weynin. inta Alle ku siiyey ku raaxayso inta aadan weynin. boqolaal qof ayaa jiro waxa aad haysatid jeclaan lahaa in ay haystaan. Sheikh Ibnu Samaak ayaa mar booqday nin boqor ahaa. markii uu la kulmay boqorkii waa uu salaamay. isla xilligaana ninka boqorka ahaa waxa uu gacanta ku haystay koob biyo ah. intaa kadib ninkii boqorka ahaa waxa uu ku yidhi sheikhii, sheekhow, bal waxa aad isiisaa talo. kadibna sheikhii wuxuu ku yidhi boqorkii, ka soo qaad koobkan biyaha ah
ee aad gacanta ku hayso isaga oo keliya haddii uu kuu goyn lahaa boqortooyadaada dhammaanteed iyo waxa aad hanti leedahay, kadibna waxa keliya ee aad haysato waa in aad kala doorataa in aad haraad u geeriyooto oo aad koobka biyaha ku beddelato boqortooyo, amaba in aad boqortooyadaada iska bixiso si aad naftaada u badbaadiso. haddaba labadan xaaladood kee baad adiga dooran lahayd? ninkii boqorka ahaa waxa uu ku jawaabay, dabcan koobka biyaha ayaa ka dooran lahaa boqortooyadayda dhammaanteed. kadib sheekhii waxa uu ku yidhi boqorkii, haddaba aniga waxaan fahmi la'ahay, muxuu qofku wakhtigiisa ugu luminayaa inuu helo farxadda yar ee taajirnimada ah haddiiba hal koob oo biyo ah uu ka qiimo badan yahay hantidaasi oo dhan? ka feker waxa aad haysatid inta aadan ka fekerin waxyaabaha kaa maqan. qofka adduunka ugu hantida badan haddii la isku barbardhigo hantidiisa iyo caafimaadkiisa, waxa uu dooran lahaa caafimaadkiisa. waxa uu dooran lahaa si uu u noolaado inuu ku bixiyo hantidiisa uu noloshiisa oo dhan u tabcayey. balse waxa muhiim ah in aad ogaato, caafimaadku in aan lagu iibsan karin maal adduun, balse waa wax uu bixiyo Allah. dad ayaa diyaar u ah in ay $1 milyan u bixiyaan si ay u helaan isha aad ku aqrinaysid qoraalkan. haddii aad haysatid caafimaad, waxaad ka nasiib badan tahay in ka badan 1 milyan qof oo aanan hal isbuuc in ka badan noolaa karin xanuun daraaddiis. haddaba ha ku dhuminin wakhtigaaga tirinta dhibaatada, yaysan kuu muuqan keliya waxyaabaha aadan haysan. xasuuso oo ku mahadceli nimcooyinka Alle ku siiyey. dadka faraxsan ma haystaan wax walba, laakiin waxay ku qanacsan yihiin oo raali ku yihiin wax walba oo ay haystaan. qanaacadu waa in uu qofka ku raali noqdo wixii Ilaahay siiyey: qurux, carruur, guri, lacag, shaqo iyo wixii la mid ah. qanaacadu waa raaxada nafta, waa cizo iyo sharaf. qofka marna kuma raaxaysan karo noloshiisa haddii uusan raali ku ahayn waxa Alle uu siiyey. nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay, waxaa liibaanay qof islaamay oo in ku filan oo aan ka yarayn kana badnayn lagu irsaaqay, wuxuu Ilaahay siiyeyna ku qancay. wuu liibaanay buu nebiga sallallahu calayhi wasallam leeyahay qofkii ku qanca, raali ku noqda inta Alle siiyey. mu'minka dhabta ahna waa kan rumaysan in wixii Ilaahay uu u qoray aysan cid kala qaadanaynin, isla markaasna uu Ilaahay xikmaddiisa ugu qaybiyo si cadaalad ku jirto. ku raaxaysiga nolosha kuma yimaadaan lacag badan aad aruursato iyo meel gaar ah aad ku noolaato. hab nololeed sare ayaad ku yeelan kartaa waxa aad haysato iyo halka aad joogto. xadiis kale wuxuu nebiga sallallahu calayhi wasallam leeyahay, wuxuu Ilaahay ku siiyo ku raali noqo, dadka adaa ugu hoodansanaanaya. dad badan ayaa jira haysta lacag aad u badan, haddana aan faraxsanayn, sababtoo ah kuma qanacsano inta ay haystaan. in yar oo Alle ku siiyey ayaad ku raaxaysan kartaa noloshaada haddii aad ku raali noqotid. muslimiintii adduunka macallimiinta u noqday dhan walba. qaar ayaan cuntada maalintaa heli jirin, qaar ayaa hal dhar lahaa, qaar ayaan guri lahayn, haddana cilmi adduunka ka tegay. waxayna dhihi jireen, haddii raaxada iyo farxadda aan haysano ay ogaan lahaayeen boqorrada ugu awoodda badan dunida, waxay isku dayi lahaayeen xoog iyo awood in ay igaga qaataan. waa maxay waxa ay ku raaxaysan jireen iyaga oo aan haysan guri iyo lacag? waxay ku raaxaysan jireen oo raali ku ahaayeen qadarta Alle. inta Alle siiyey ayay raali ku noqdeen, kadibna Alle wuxuu siiyey raaxo laga dareemo dhanka qalbiga. miyaadan aqrinaynin xadiiska nebiga sallallahu calayhi wasallam uu leeyahay,
waxaa la yaab arrinka qofka mu'minka arrimihiisa oo dhan waa khayr. waxay gooni u tahay ruuxa mu'minka oo keliya. haddii uu la kulmo wax wanaagsan wuu farxaa oo wuu ku mahadnaqaa. haddii dhibaato ku dhacdana wuu ku sabraa, waxayna u noqotaa khayr. noloshana kuma siinayso wax walba oo aad jeceshahay, laakiin qanaacada ayaa kaa dhigaysa in aad jeclaatid ku faraxdid wax walba aad haysatid. sida aan ognahay bini'aadamka wuxuu mar walba u arkaa farxaddu in ay ku jirto waxa uusan haysan. marka uu helana meel ka sii saraysa ayuu sii raadiyaa, weligiisana raaxada nolosha ma helayo. sida uu inoo sheegay nebiga sala allahu calayhi wasallam mar uu ka hadlayay qanaacada dadka wuxuu yidhi, haddii bini'aadamka la siin lahaa 2 waadi ama tog oo dahab wuxuu raadin lahaa mid saddexaad. bini'aadamkana afkiisa waxaa buuxiya ciidda oo keliya. taas waxay ku tusinaysaa in qofka aysan marnaba dhammaanayn doonistiisa iyo rabitaankiisa ilaa geerida ku timaado. tusaale ahaan, haddii aad ku shaqayso $200 waxaad raadinaysaa in lagaaga dhigo $300 marna kuma raaxaysanaysid 200 aad ku shaqayso, sababtoo mar walba waxaad ka fakaraysaa waxyaabaha kaa maqan, marna kama fakarayso inta aad haysatid. waxaad u arkaysaa in haddaad heshid $300 bishii farxaddaada ay siyaadayso, laakiin marka aad 300 heshidna 400 ayaad sii rabtaa. waxba kama qaldana qofka inuu ku riyoodo nolol sare oo raaxo badan. waxa u baahan in la iska ilaaliyo waa in aysan waxyaabahaas noqon dhuuninimo, isla markaasna qofka dhaxal siinaysa mararka qaar in uu geysto dil, ama inta qofka wuxuu haysto laga soo qaado uu isagu isla jeclaado in uu helo. tusaale ahaan, haddii aan soo qaadano qiso kitaabta adabta qaybtood qoraan oo ahayd 3 nin ayaa isa soo raacay, iyaga oo waddadii socda ayaa waxay heleen kanzi ama xoolo aad u badan. kadibna waxay dhaheen aan qaybsano si isku mid kadibna iyaga oo waddadii haya ayay gaajoodeen. kadibna mid ayay ku dhaheen, raashiin magaaladii inoogu doon, cidna ha u sheegin. arrinka ka qari yaan layna arag si aan la inoo damcin. markii uu tegey ayuu damac galay oo uu yidhi, si aad adiga xoolaha keliga u qaadato raashiinka sun ugu dar. iyaga ha cunaan, kadibna saas ha ku dhintaan, raashiinkuna adiga keligaa ha kuu soo haro. raashiinkii buu sun ka soo buuxiyey, kadibna soo qaaday. intii uu maqnaa ayay labadii kalena waxay yidhaahdeen, ninkan inaga maqan aan ka takhallusno, labadeenna ha inoo soo haraan xoolaha. sidaas ayay ku heshiiyeen. ninkii marka uu yimaadayna way dileen, ilaan waa niman horay ugu tashaday. kadibna waxay dhaheen, aan nasano, raashiinkii bay cuneen, iyagiina way ku dhinteen. waxa arrinta halkaas gaarsiiyey waa damac iyo xasad. qanaacadu waxay leedahay faa'iidooyin badan oo ka mid inuu ahaado qofka mid mar walba u mahadnaqa Ilaahay fadliga uu ugu deeqay. haddii ay tahay caafimaad, caruur, maal, qurux iyo wixii la mid qanaacadu waxay sabab u tahay in lagu barakeeyo wixii Ilaahay ku siiyey. isla markaasna qanaacadu waxay leedahay raaxo nafsiyan Ilaahay ayaa bixiya qanaacada, inaguna waa inaan ku dadaalno sidii aan u noqon lahayn dad ku raali nimcooyinka tiraha badan ee Ilaahay ina siiyey, oo ay ugu horayso islaamnimada, caafimaadka, dhamaystirka 6 lixaad, caqliga, aqoonta iyo kuwa kale oo badan. sida uu Ilaahay qur'aanka inoogu sheegay, haddii la damco in la tiriyo nimcooyinka Ilaahay inaan la tirin karin, Ilaahay ha inaga dhigo kuwa raali ku inta uu siiyey. aamiin. noloshu waxay i bartay in qanaacadu tahay xaalad lagu noqdo
in lagu helo nolol dhammaystiran oo farxad wadata sidoo kale in ay tahay meesha ugu dambaysa ee uu qofka ku kasbado kalsooni iyo isku filnaansho buuxda fikirka wanaagsan dhinaca aad ka fiirsid ayay maskaxdaada ogolaanaysaa wax wanaagsan ayaa noqon kara wax xun haddii aad ka eegto dhinaca mugdiga ah wax xun ayaa noqon kara wax fiican haddii aad ka eegto dhinaca iftiinka ah mar walba ka fiiri xaalad walba dhanka wanaagsan maskaxdaada waxa aad ka dhaadhicisid ayay ogolaanaysaa haddii aad arrin walba ka fiirisid dhanka wanaagsan maskaxdaada waxay ogolaanaysaa in ay arrintaas tahay wanaag ama haddii aad ka fiirisid dhanka xun waxay u malaynaysaa in uu arrintaas wanaagsanayn tusaale haddii aad wadato Mercedes ama gaari raqiis ah waddadu waa isku mid haddii aad diyaaradda ku safarto economic class ama business class halka aad u socoto isma beddelayso haddii aad ku seexato sariir qaali ah ama dhulka aad seexato hurdo hurdo waxa keliya kala duwan waa dhinaca mid walba aad ka fiirinayso mid inta ugu yar ee uu haysto ayuu ku raaxaysanayaa midna isaga oo wax walba haysta ayaanu ku raaxaysanayn sababtoo ah wax ka sii badan ayuu rabaa u fakir si wanaagsan wax kasta ka fiiri dhanka wanaagsan mar kastana filo khayr iyo wanaag waad heli doontaa sababtoo ah ilaahay wuxuu leeyahay addoonkayga khayr iyo wanaag hadba kuu iga fishuu iga helaa nimcada alle haddii aad adigu caafimaad haysato waxaa jiro malaayiin xanuuno qaba haddii aad adigu miyir qabto oo aadan waalnayn waxaa jiro kumanaan kun waalwaalan oo xirxiran haddii aad aqrin karto qoraalkan waxaa jira malaayiin aan indho lahayn iyo kuwa aan wax akhriska aqoon iyo kuwa aan iftiin koronto haysan oo mugdiga ku nool haddii aad haysato maqal waxaa jira malaayiin aan waxna maqlin jecel maalin in ay wax maqlaan haddii aad adiga xoolo haysato waxaa jira kuwa maalin walba baahi u dhinta haddii carruur ilaahay ku siiyey waxaa jira kuwa aan waxbana dhalin maalin walba ku ducaysta in ay ilmo dhalaan haddii aad adiga tahay qof muslin ah waxaa dunida ku nool boqolaal aan muslin ahayn ma dhahday alxamdulillaah nimcooyinka ugu waaweyn ee alle ina siiyey ayaa ah maskaxda oo aanan jirin wax loo dhigo waa mashiinka amra oo kala wada jirka la'aantiisana waxaan noqon lahayn dad waalwaalan oo aan isxukumi karin gacmahaaga ma ku gadan lahayd $1 milyan lugahaaga ma ku gadan lahayd $100 milyan qalbigaagana ma ku gadan lahayd $100 milyan imise lacag ayaad haysataa oo aadan alle ooga mahad celin lama soo koobi karo waxa uu alle na siiyey oo nimcooyin ah alle waxa uu qur'aankiisa ku leeyahay haddii aad isku daydaan in aad tirisaan nimcada alle ma soo koobi kartaan waxaad qortaa nimcooyinka alle ku siiyey ee aad ugu mahad celinaysid waxaa loo baahan yahay in aan mar walba ku shukrino alle nimcada uu ina siiyey oo aan mar walba dhahno alxamdulillaah ilaahow adaana siiyey ee noo siyaadi haddii aad meel ka dhiman tahay ha isdhihin meeshaas ayaa kaa maqan ee alle ku shukri soona xasuuso in dunida ay ku nool yihiin dad adiga kaa liita 1,000 jeer ku qanacsanow oo ku farax waxa alle uu ku siiyey markaas ayaad noqonaysaa addoon alle ugu mahad celiyey waxa uu siiyey ha isbarbardhigin ahaw qofka adiga aad tahay faraxsanow kuna noolow noloshaada dhabta ah
waxaa jira sabab uu ilaahay kaaga dhigay sida aad tahay kuu siiyey waxa aad haysato naftaada ha barbardhigin naf kale mushaharkaaga mid kale gaarigaaga gaari kale moobeelkaaga mid kale gurigaaga guri kale carruurtaada carruur kale jooji isbarbardhiga bilow noloshaada waxaan hubaa markaas inaad noqonaysid qof ku raaxaysta noloshiisa uguna farxadda badan midna ogow waxa ugu adag adduunka waa inaad isku daydo inaad noqoto qof kale oo aadan ahayn dadka qaar ayaa u dhimanaya inay dhuubtaan si ay ugu ekaadaan kuwa moodeelka ah qaar kale ayaa jecel in ay miisaan u kordho oo buurtaan dad badan ma garanayaan waxa ay samaynayaan keliya waxay arkeen cid kale oo samaynaysa waxaa la joogaa wakhtigii aad joojin lahayd arrinta kuna farxi lahayd sida aad tahay iyo waxa aad haysato isbarbardhigid waa cudur waxay waxyeelaysaa xiriirka kaala dhexeeya naftaada kan dadka kale iyo midka ugu muhiimsan xiriirka ilaahay waxay kaa dhigaysaa mid aan ku mahadcelin nimcada ilaahay ku siiyey iyo aamin waxa ugu fudud adduunka aad samayn karto waa inaad qofkaad tahay ahaatid faraxsanow kuna noolow noloshaada dhabta ah waxaa jira sabab uu ilaahay kaaga dhigay sida aad tahay kuu siiyey waxa aad haysato raaligelinta dadka waa arrin aan la gaari karin maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa suuqa aaday wiil aabbihiis iyo dameer ay rabeen inay suuqa u iibgeeyaan iyaga oo lugaynaya ayaa waxaa ka hor imaaday laba qof maxaad u lugaynaysaan idinka oo dameer wata maad raacdiin sidaas ayay ku dhaheen duqi ayaa wiilkiisa ku yidhi bal adigu fariiso oo dameerka wad aabbo cabbaar markii ay socdeen kadib ayay waxay arkeen haweenay ku calaacalaysa ceeb badanaa wiilku isagu ayaa dameerka wadaya aabbihii wuu lugaynayaa sidaa darteed wiilka dameerkii ayuu ka degay duqii ayaana raacay dameerkii mar kale ayay waddada qof ku arkeen miskiin waa maxay duqa aan naxariista lahayn wiilkiisa ayaa lugaynaya isagana dameerka ayuu wadaa qof ayaa sidaa ku yidhi markaana labadood ayaa raacay dameerkii qof kale ayay waddada dhexdooda ku arkeen xaasidsana waxay rabaan inay dameerka maskiinka ah dilaan sidaa ayuu qofka kalena ku yidhi markii hadalkaa maqleen ayay labadoodiiba dameerkii ka degeen waxayna go'aansadeen in ay labadooda lugeeyaan iyaga oo dameerkii wada suuqi markii ay soo galeen ayaa dadkii oo dhan la yaabeen oo ay ku sheekaysanayeen dameer bay wadaan labadoodna midna ma fuulin bal fiiri aabbaha iyo wiilkiisa sida ay dadku mar walba ugu hadli jireen haddaba waa in aad ku dhaqaaqdo oo aad samayso waxa aad rabto dani kuugu jirto waafaqsanna diinta adiga oo aan cid kale ku raaligelin dadka oo dhan ma qancin kartid xitaa haddii aad tahay midka ugu wanaagsan sababtoo ah dadka maanta adduunka joogo markii aad isdhahdid caawi waxay u qaadanayaan in aad istustus iyo halagaa sheego ka wado markii aad rabto in aad keligaaga ahaato waxay u qaadanayaan in murugo ku hayso markii aad ku wanaag u samayso way iska indhatirayaan laakiin markii aad hal qalad samayso waxay wadayaan intaas sano markii aad hadal dabacsan ku hadasho waxay u qaadanayaan in aad tahay daciif markii aad bilowdo in aad dantaada garato waxay u qaadanayaan in aad dadka ka go'day oo buufis kuugu dhacay dadka mar walba way hadlayaan marna ma raaligelin kartid si kasta oo ay tahay si kasta oo ay kuu xukmiyaan wax kasta oo ay u qaataan adiga ha joojin ee joogtay wanaag samaynta iyo in aad u dhoola caddayso salaanto xushmayso u naxariisato soo dhowayso cafiso caawiso hadallada dadka allah wuxuu leeyahay yaysan ku walbahaargelinin hadalkoodu sababtoo ah dadku way hadlayaan waxayna ka hadlayaan wax quseeya iyo wax aan qusaynba dadka hadalkooda waxaa ka mid ah hadal wanaagsan oo dhiirigelin leh iyo mid aan wanaagsanayn oo abuuri kara dhibaatooyin
qofka guuldaraystay waa qofka isku dhiiba hadalka dadka ee aan awoodin in uu difaaca naftiisa. waa in aad samaysaa waxyaabaha adiga aad ku raaxaysanaysid ama ku farxad geliya, aanan muhiimad weyn siinin dadka hadalkooda iyo waxa ay samaynayaan. marka ay bilaabaan in ay wax kaa sheegaan oo aan wanaagsanayn, ka fogow meeshaas, iskana ilow hadalkooda. waxaadna ogaataa qof waliba oo bulshada ka mid ah waxa uu leeyahay habfikir u gaar ah. hadalka alle aan ku dadaalno, isagaa inoo daawo ah. aanna ka fogaano hadalka dadka. marnaba ha u ogolaanin in qof ku liido ama ku dareensiiyo in aadan qiimo lahayn. alle wuxuu kuu abuuray ujeeddo cad, alle ayaana ku karaameeyey. imaamu shaafici ayaa yidhi, qof allaala qofkii u maleeya in uu ka badbaadayo hadalka bini'aadamka wuu waalan yahay. alle ayay wax ka sheegeen, nebi moxamed ayay wax ka sheegeen oo ay yidhaahdeen waa saaxirow, wuu waalan yahay. maxaad u malaynaysaa wixii ka soo haray labadooda? dadka hadalkooda waa sida dhagxaanta, ama dhabarka ayaad ku qaadaysaa oo waad ku jabaysaa, ama lugahaaga hoostooda ayaad kaga dhisanaysaa dabaq abraaj sare kuu qaadaya, waadna guulaysanaysaa. ma joojin kartid hadallada dadka, laakiin ha u oggolaan hadallada dadka inay adiga ku joojiyaan.